shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom Soomaaliya laanteeda magaalada Kismaayo ayaa deeq lacageed gaarsiisay isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo iyo xarumo caafimaad oo kale waxaana deeqdan lacageed ee shirkadda Hormuud Telecom Soomaaliya ay guddoonsiisay qaar ka mid ah dhibanayaasha ku xanuunsanaya isbitaalka magaalada Kismaayo waxaana markii ay soo gabagabowday deeqdan lacageed warbaahinta la hadlay maamulaha shirkadda Hormuud Telecom Soomaaliya laanteeda magaalada Kismaayo Ahmed مرسل نور كان هالله سدا أي وقيبيان صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أولا إلهي سبحانه وتعالى ونكون مهدينا إلهي سبحانه وتعالى يسأل وافجيي إنه شقة هذا عن سوق قواني ورهنتي شقة أكسن إن عن قوانو يعني حيلة إني أود إن معها إلهي سبحانه وتعالى يسأل أمارة إنه وافجيي بعد الحمد لله وحان أمهد علينا عد كسر كقيب قاطي أو معناها محوها عنك جيستي برامج كأما شغلة عن سوق قواني بوكان كشيفاء إسبتال كجود مجال كسمايو العقد أنو قيبني أو شركة هرمود أيو قيبسي عد كسر عنك جيستي وهو الرئيس قاسمها إسبتال كجود محوها مجال كسمايو iyo shaqaalaha kalaba iyo dhammaan shaqaalaha Hormuud iyo bahda saxaafada dhammaan waxaan iyagana waan u mahad celinayaa inta kadib deeqadan aad adkayseen oo muxuu ahaay bukaanka loo qaybiyay bukaanka jiifa isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo waxa weeyaan shirkadda Hormuud waxay ugu talagashay deeqdaas in ay ku caawiso bukaanka jiifa isbitaalka munaasabada Ramadaanka maadaama aynu ku jiro bishii barakeysneed ee Ramadaan sidoo kale waxa goobta ka hadlay agaasimaha guud ee isbitaalka magaalada Kismaayo Dr. Xuseen Sheekh Qaasim aniga ku hadlaya magaca isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo waxaan halkan ka cadeynayaa shirkadda Hormuud inay maanta lacag u qaybisay bukaanka jiifa isbitaalka fadliga bisha barakeysan ee Ramadaan qaybaha kala duwan ee isbitaalka bukaanadii jiifay dhammaan lacag baa loo qaybiyay sida qaybta quudinta qaybta qalitaanka qaybta dumarka qaybta caruurta qaybta shubanka qaybta jadeecada aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa bukaanada isbitaalka jiifa oo maanta lacagta la siiyay waa 226 bukaan si kastaba ha ahaatee deeqdan lacageed ee shirkadda Hormuud Telecom Soomaaliya ay gaarsiisay isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xilli lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaanka Saabir Cabdulqaadir Rusam Saabir Honesty telefishinka caalamiga ee Soomaali Cable magaalada Kismaayo